wasiirka kheyraadka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo maalmihii la soo dhaafay howlo shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho waxaana halkaas ku soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Marwo Saciid Xasan Cusmaan isku duwaha wasaaradda kheyraadka dalka Jibriil Maxamuud Geedi agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda kheyraadka dalka wasiirka kheyraadka dalka mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay safarkiisa isagoo sheegay in safar uu ku tagay wadamada Belgium Britain isla markaana uu kaga qayb galay shirar caalami ah waxaana uu sheegay in shir looga hadlay wax soo saarka dalka wadamo ka tirsan qaaradda Afrika uu kaga qayb galay magaalada London ee xarunta wadanka Ingiriiska uu sheegay in looga hadlayo sida loo maareynayo wax soo saarka dalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan ku tagay aniga wasiirka maaliyadda ayaan wadahayn waxaan ku tagnay magaalada wadanka Ingiriiska magaalada Oxford waxaan u tagnay waxay ahayd jaamacadda Oxford ayaa waxay siinaysaa seminaar ku taxalluqo sida kheyraadka loo maamulo safarkaas wuxuu ku qaatay ilaa 6 cisho waxaana ka soo qayb galay wasiirro badan oo ka yimid wadamo u badan Afrika oo lagu tuhmaya badankooda ama qaarkoodba inay soo saaraan wadanka ay ka soo saaraan saliid marka wasiirro badan ayaa ka soo qayb qaatay wuxuu ahaa inkastoo ahaa academic uu ahaa haddana wuxuu ahaa shir oo practical ah seminar oo practical ah oo si practice oo la taaban karo wax la isku sheegay sida loo maamulo kheyraadka wadamadaas si aysan u dhicin si looga fogaado waxyaabaha ay ka mid yihiin musuqmaasuqa iyo waxyaabaha la midka ah wasiirka kheyraadka dalka Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inuu ka qayb galay shirka lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels ee wadanka Belgiumka isla markaana Soomaaliya loogu yaboohay lacag aad u fara badan oo lagu maareynayo baahiyaha jira waxaana uu tilmaamay in faa'iido badan ay ugu jirto shirkaas iyo qodobadii ka soo baxay waxaan sii gudubnay inaan ka qayb galno shirkii ka dhacay Brussels loogu ururinayo wadanka Soomaaliya haddana waa meesha sakan Brussels baan ka imid si fiican buu u dhacay su'aal la wada socotaan idaacadaha waa laga sheegay kulleeytu wax faahfaahin kaleeto intaas ka sii dheer waad u baahan tihiin inay jirto u malayn maayo hawsha ballaaran ee wasaaradda kheyraadka dalka ay ka mid tahay in wax soo saarka dalka ay siyaadiso ayaa sii kordhaya iyadoo wasiirka kheyraadka dalka ballan qaaday inuu sii kordhinayo waxqabadka wasaaradda kheyraadka dalka oo muhiimad gaar ugu fadhiso shacbiga Soomaaliyeed Mustafa Xuseen Cabdulle TV qaranka Muqdisho